يا من أرسيت مراسينا وبعثت بنورك ياسينا أيلوذ بغيرك عاصينا لك يا الله. قد حل وباء أرقنا ورفعنا الأمر لخالقنا فهنا وهناك يلاحقنا فدعونا الله. يتلاشى الهم وينحصر ومخالب تقوى وتنكسر والفرج سيأتي marka waxaan hore ugu socon doonaa barnaamijkeena waxaan u gudbi doonaa sheekheena Sheekh Xamse Cali mowduuciisuna wuxuu noqon doonaa raacida xujada iyo hadiyada xadiiska sheekh ayaan uga bixi doonaa fadiilada sheekh Suudo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تمرك وراء الشيخ الحجينا حمزة محمد علي ولا علي وأبوه أنا قلنا حمزة أبوه محمد صدق الشيخ يقول جزاه الله خير mid kastoo ka mid wuxuu ka soo warramay mowduuc runtii sidiisa u madax bannaan oo qiimihiisana leh runtiina mid kastaba ka kale wuxuu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisii iyo siiradiisii rumaynta la rumeeyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo jacaylka la jeclaanay. aniguna laba qodob ayaan insha allah ka hadli doonaa. qodobka koowaad waxa uu yahay xujinimada ay xujo tahay حديث رسول صلى الله عليه وسلم يقين لقاته أو لو عمل فله أو لو رقمه يقضى كل بعضه إن هدي جيسي يدري قيسي للرعب. إيمان كان الرمي إنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلمه ملك كور رميان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ملك محمد رسول الله إن النبي محمد رسول أقرته وحي هذا أفر أرمض بخوصنا wixii nabi maxamed inooga warramay in aynu rumayno wixii inooga sheekeeyey qisas ahaa ee war ahaa iyo waxa soo socda waxna waa wax tagay waxna waa wax soo socda qayba inaan rumayno. laba in aynu dhaqan gelino oo aynu qaadano wixii nabi maxamed inoo faray. saddex in aynu ka tagno oo aynu ka dheeraano wixii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo diiday ama uu naga reebay. afar in aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaano oo ugu cibaadaysano wixii uu inoo sharciyeeyey. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in xadiidkiisa la qaato lagu camal falo lagu dhaqmaa waa qayb ka mid ah iimaanka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu rumaynano aynu qaadano. aayaad aad iyo aad u fara badan baa kusoo arooray sidaas oo kale axaadiis aad iyo aad u fara badan baa kusoo arooray. culamaa ulmuslimiinna qadiiman wa xadiitha waxay isku waafaqeen oo isku raaceen iyagoon u kala hadhin inay tahay shay la isku waafaqsan yahay in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa la qaato lagu dhaqmo la dhaqan geliyo oo sida quraanka loo qaadanayo si la mid ah loo qaato. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad aad iyo aad u fara badan buu kaga warramay. waxaa ka mid ahaa fi suurati naxl in ilaahay subxaanahu wa tacaala wuri waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatadakkaruun. nabi allah waxaan kuugu soo dejinay dikrigan oo ay culimadu ku tilmaamaan inay tahay sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ujeedooyin ay ka mid tahay inaad dadka u cadayso wixii lagugu soo dejiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaab qur'aan noo soo dejiyey. nabi maxamed buu u soo waxyooday isagoo malakul jibriil u soo dhiibaya. kitaabkaasi cibaadooyinka qaar uu ka sheekeynaya si mujmal ah oo duuduub ah ayuu ilaahay qur'aanku kaga warramaa si wax tafsiiliya oo kala dhigdhiga oo inoo kala cadeeya xabiibkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisii inoogu kala cadeeya. marka waxyaabaha ay faa'iidooyinka ay leedahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey idan laftarkeedu waa waxiye waxay tahay inay noo kala cadeyso oo nabi maxamed inoo kala sheego cibaadooyinka iyo mucaamalaadka iyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanku kaga warramay. tusaale ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada aynu tukano oo ah rugniga labaad ee diinta islaamka wa aqiimu salaah salaada oogitaankeeda ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ina faray. كيف سيدي بقى لو أوجيا
waa imisa salaadood salaad kasta imisa ragcadood bay ka kooban tahay ragcad kasta imisa arkaan imisa shuruud imisa waajib imisa sunna ay leedahay waxa soo dhan waxa cadeeyay sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam idan sunnadu waa qayb ama waa mastarka labaad ee diinta islaamka haddii qofku yiraahdo anigu waxaan ku kaaftoomayaa kitaabka quraanka waa ku gaaloobaya diinna uma jiraso waxaba yaraatee waxaasil garoobayana ma jirayaan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka waramay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in laga xukun dhinto oo haddii isaga uu nool yahayna isaga loo tago haddii isaga uu dhintay waa halkan aynu taaganahay maanta ee in sunnadiisii iyo axaadiistiisii laga xukun dhigto markuu nabi maxamed waxa inoo cadeeyo xukunkiisa inaan xagga la eegina la qaato loo hogaansamo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay oo uu ka nafiyay dadka aan sidaas samayn inaan iimaan lahayn fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima ilaahay subhanahu wa ta'ala isku dhaaranayo waxa uu leeyahay nabi allah rabbiga baan ku dhaartay dhab ahaantii kuma rumayn marka ay ka xukun dhigtaan ay kula yimaadaan ee aad wax kala xukunto haddii xukunka ay ku qanci waayaan oo naftooda ay raali ku noqon weydo oo u hogaansami waayaan idan haddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maanta uu dhintay innaka mayitun wa innahum mayitun وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وحمان تحيئة أو نول سنديسي عليه الصلاة والسلام haddii marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu amr inoo sheego ama wixii naga reebo aad ku qanci weydo aad qaadan weydo aad u hogaansami weydo iimaankaaga dib ugu noqo dhaawac baa ku jira haddii inuu iska dhaaf inay ka muuqan weyde xaraj hadaad ka dareento qalbigaaga iimaankaaga dib ugu noqo ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kale wuxuu inooga warramay oo uu leeyahay يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا تتكي إيمانك لهايو يا أيها الذين آمنوا كوي علي الرسول برميو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلهينا أطيع رسول كيسينا أطيع waxaad kala adeecdaan ulul amri minkum dadka arrinkiina loo dhiibay oo ah al ulama wal umara inta markuu ilaahay nooga warramay qodob muhiim ah oo tajribo ku ah ama imtixaan ku ah iimaankeen bay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka warramay waxa uu fa in tanaza'tum fi shay hadaad wuxuu isku qabataan oo aad ku doodaan isku afkaran weydaan farudduhu ila allahi war rasuul ilaahay rasuulkiisa u celiya shardi baa lagu xiray yaa u celinay ilaahay rasuulkiisa waa haduu qofku iimaan leey in kuntum tu'minuuna billahi wal yawmil aakhir okay ilaahay rasuulkiisa sidee baa lagu celinayaa de waxa lagu celinayaa ilaahay muxuu ka yiri rasuulkiisa maxamed calayhi salaatu wasalaamna muxuu ka yiri ilaahay rasuulkiisu markay arrin jaraana calaamadaha tilmaamaya iimaanka waxa kamid ah inaanu qofka muslimkii lahayn ama aanu حق لهين وحلا يراهدو خيار أما دورش إلهي في سورة الأحزاب مركل وحك جورهمي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا إلهي الرسول كيسو مركي أرن شران وما عنتنتو وما نهب ونقف مؤمن أو ركعة يجبر مؤمنات أو دمر تونا إن خيار يدور شيء شان إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إن أرنك إلهي هالكاسة أي لهذان ميرك لو حكر راديان ميرك لو حكر دونان حديثة أي تاسي العضو إيمانك قدبوا النقو إيمانك وحينوت المامية إن هذا الكإلهي أو قرآنك هذا الرسولك أو حديثك إن لابد بيهين لبحثوا oo labadu haday shay isku raacaan oo iska daba maraan aayadii xadiis uu shay sheego ama aayad ay si gaar ah u sheegto shay ama xadiis uu si gaar ah u sheego shay marnaba uma haboono qof muumin ah oo iimaan leh rag iyo dumarku doonaha haade in uu labadaas waa quraanka iyo xadiiska inuu dhinac uga leexdo meel kale wax ka raadiyo
وأرن خطير أو جدا أو أدي أدوين وحيابها مهم كأني نفهمه حكمت وقت الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كن كسي شيكي وحديث دي سكوسو أروتي أو أدي أدو بوحدة إن تيران ضد أوران دونا وحي الكتاب كقرآن كهشان حلال أهنا حلال شدا وحي كتاب كقرآن كهشان حرام أهنا حرام صدا أنت وحي كدم بيا وحبه سنين المعنى محي ديدين سنة النبي محمد بديدين سنة النبي محمد يحديث النبي محمد وحا كجرا أمر رسولك إنه أمر ريو وهدي لي ما دتشنا لجوه ليو نهي يوحي نودي ليو وهدي لي ما د عذاب لجوه ليو بل في آخر في سورة نور إلهي سبحانه وتعالى حقق شيئين فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذا تونادان وهكذا يرادان كوا خلافيا بالمريا أمرك رسولك عليه الصلاة والسلام إن لبا أرمود ميدو كدعو أن تصيبهم فتنة إن فتنة هليشو فتنة مركا علماء كورمي waxay dhahdeen waa in qofku diintiisa uu ku ridoobo oo gaaloobo oo nifaaq iyo bidca iyo leexsanaan qofkaas ku dhaco waa arin khatar ah iimaankaaga khalkhal galay inta adduunyada joogtay islaamnimadaadii ku weyday amar rasuulad khilaaftay أو يصيبهم عذاب أليم أما عذاب حنون كلهم إنه كله لبعض أريم هذا سكيل عليان هذا بس إذا بينه سكيل علين كرنا إن أينه خلافنا أمر رسولك عليه الصلاة والسلام دواين إنه حديث كيسي قادنا وأمر كلينا إلى هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيري أو إن أمري سدا يا سدا وإنه قادنا وإنه خلاف هذي لنا هذا رسولك عليه الصلاة والسلام أي وحي نوديدي إننا بالمر بل إلهي سبحانه وتعالى سيدا كسوغان في سورة حشر وحو أمر نقصي نبي محمد وحي حقيسي نقصو قاعدا إننا قادنا أي أمر وحي نور ريبنا إننا كتكنا إن كستو آيادا مركز سودك سي أي فيغا إيا حكامتي سكسو دكتي هذا نوع علماء السجود وعامة أي يودي للشدان إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب مركوا شيء مهم إن أين كد دالو إن أين قادنا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه ليمت وما آتاكم الرسول فخذوه وأمر كله إلهي بين له وما نهاكم عنه فانتهوا وحي رسولك ينجح يبنا إيه حديث تيس كسرنا وإن كل أرانه واتقوا الله إلهي سبحانه وتعالى كعبصة المقدام بن معد أما معد يركب وحو رسولك كسورين عليه الصلاة والسلام سيدا إمام مسند إمام أحمد مسند كيسي وكسوري إمام الباني تصحيحنا إن رسولك عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وحا ليسي أو نقول النبي محمد كتابك يا مدلم يدع أو صعدة ألا يوشك رجل شعبان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وحا لغاية بابوري إن الدعضو إن سريرتي سيسكتشيفا وإسكرا حيسانيا إنه آير سيفو سكيلاهدو والكتابك القرآن وحي آدكيه الشان حلال أهنا حلاشدا وحي حاران آدكو أركتانا حاران كدكت رسولك صلى الله عليه وسلم وكسيدقي أحاديث آدي فرا بدن baa ku soo aroortay iyadoo maqaamku uu kooban yahay bal waxaan isku dayaa culimadii waaweynada muslimiinta Imam Shafi'i Ibn Hazm Ibn Taymiyyah Imam Shawkani iyo culimo kale aad fara badan oo aan la soo koobi karin baan inaan mid iyo laba ka soo qaato Imam Shafi'i alayhi rahmatullah waxa uu leeyahay dadka muslimiintii waxay isku raaceen waxay ku ijmaaceen in qofka ay u cadaato shaygaas inuu yahay sunno rasuul عليه الصلاة والسلام أما حديث الرسول إن أنا أهبونين إنه كتجو يسقى قاضنا هذا العيد كله واجب كسارنا أي تهاي إنه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدي سوقاته مركلا وحول ابن حزم يسقنا مركو كورمي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي وحوله فردوه إلى الله والرسول وحلو جشدا إلى الله وقرآنك إلى الرسول وحلو جشدا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم
idan marka qofka diida rasuulka sallallahu alayhi wasallam sunnadiisi waa qof rasuulka diiday qof rasuulka diidayna waa qof ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkiisa diiday ibn taymiyyah alayhi rahmatullah isaguna waxa uu tilmaamaa oo uu sheega in aimada la tirsado ee macruufka ayan kan qadiiman wa haditha in isku raacsan yihiin in aanay banaanayn in si camdan ah loo khilaafo ama loo baalmaro hadal rasuul sallallahu alayhi wasallam ama ha yaraado ha koobnaado ama ha weynaado wax isku raacsan yihiin oo isku ijmaacsan yihiin in la qaato inay tahay shay waajib ah imaam shawkani isaguna alayhi rahmatullah sidaas la mid u tilmaam culimada muslimiintii aad iyo aad ay arrinkaasi iskaga daba mareen aadna way u adkeeyeen sida darteed ba culimadu waxay tilmaamaan inay jiraan dad la yiraahdo quraaniyiin waa qof muslim ah عفوا قف مسلم كواب ترسنيا المسلم ما هي قف رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كيف سيديدي او اورانيا انو قران كو كليان قادنيا او محد حديث كو قادن ويدي دي حديث كان يو كلسوني لو قاto malaha oo intaas xadiis oo daciif ah jirta qaar mawduuca jira culimadu alayhi rahmatullah arinta noocaas si la yaab leh ay uga jawaabeen kitaab fara badan baa ay ka qoreen si adag bay u radiyeen laakiin waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah qofka oranaya anu quraanku kaliyan qaadanaya xadiiska ma qaadanayo sababta ah dadka soo wariyay kalsooni badan lahayn ama aan cadaaladooda la amaanayn bal waxaad ka warantaa quraanka aad leedahay waan qaadanaya kii inoo soo wariyay oo saxaabi ee ka soo wariyay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam afkiisa ayaa xadiiska inoo soo wariyay marka miyaanay ahayn shay isku mid ah inaad kala qaadato waa calaamadaha ugu horeeya isla markaaba lagu garanayo in qowlka noocaas uu baatil yahay baatilnimada ah in quraanku kaliya lagu kaaftoomana ilaahayna quraanka way naga waramay nabi maxamedna xadiiska way nooga waramay oo muxaanu inooga waramay ilaahay baaba tilmaamay nabi maxamed wuxuu ku hadlayaa inuu yahay waxyi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha miyana dagin xadiis la yiraahdo xadiis qudsi oo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam rabbigi toos ugu soo warinayo oo la xukun ah kitaabka quraanka way hadii ay dhacdo inaynu aragnaa xadiis daciif ah ama mawduuca ama qaarkood dadkii murtadiinta ama munaafiqiinta ama gaalada aha ama dadkii juhalada muslimiinta ay cibaad aha ay sameysteen madurasa ama makeenaysa in xadiistii laga wada istaago la makeenayso ilaahay subhanahu wa ta'ala dad buu diray shuruuda iyo istilaaxaadka loo dajiyay aqbalitaanka xadiiska saxiix ah iyo diiditaanka la diiday xadiiska qalooca ama daciifka ama mawduuca ama marduudka hadii qofka inuu aqli leh ilaahayna cilmi siiyo uu eego wuxuu arki doona arin la yaab leh xadiis marka la leeyahay waa xadiis saxiix ah waxaanu boqol hubnaa oo shuruudiisi la raaciyay in xadiiskaasi toos uga sugnaaday xabiibkeena maxamed alayhi salaatu wasalaam marka taasi marnaba ma keenayso in nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam aynu xadiistiisi ku durno oo aynu niraahna ma qaadanano marka hadaad aragto qof diidaya qaadashada la qaadanay xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam iimaankiisa ayaan waxba ka jirin sababta ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah bay kamitahay in nabi maxamed wuxuu kaaga waramay aad qaadato nabi maxamed baan aaminayaa wixii uu sheegay inay ma qaadanayo suurtagal ma inkastoo maqaamku aanu munaasab ku ahayn in waxyaabo fara badan laga sheekeeyo dadka daaciniinta ee dacniya xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha adeegsadaan waxa kamid ah abi hurayra radiyallahu anhu oo kamid ah saxaabadii mudooyinkii dambe soo islaamay waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina u yimid ayaa waxay isweydiinayaan sidee bay suurtagal ku tahay in intaas oo xadiis soo wariyay waxyaabaha daciifka ay damcaan inay ku duraan qaadashada rasuulka la qaadanay xadiiskiisa alayhi salaatu wasalaam arinta noocaasina hooyo yaraatay uga masqna wax daliil ah oo keensanaya in la diido xadiiska rasuulka alayhi salaatu wasalaam halkaas waa qodobka ku saabsan xujjanimada ay xujjo tahay sunnada rasuulka alayhi salaatu wasalaam aniga runtii aad uga raxun inaan ku dheeraaday qodobka labaad waa raacitaanka la raacayo hadiga nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam
raacitaanka la raacay hadigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee waa diintii ilaahay uu soo dejiyey oo aynu ka qaadanayno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee qofka ilaahay ugu dhowaada ama ugu cibaadaysta wax aan ahayn dariiqa iyo hadiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee wax soconaya ma axaadiis iyo aayaad aad iyo aad u fara badan baa ku soo arooray bal waxaan ka soo qaadanaynaa mid iyo laba ilaahay subxaanahu watacaala fii suurati al-acraaf bilowgeeda aayadda labaad waxa uu leeyahy ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa waxaad raacdaan wixii ilaahay subxaanahu watacaala idiin soo dejiyey wixii intaa ka soo hadhay ee cid kale ay leedahay raacin waxaan ilaahay inoo soo dejiyey lagu soo dejiyey waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay mar kale wuxuu inooga warramayaa calaamadda tilmaamaysa inaad ilaahay jeceshahay inay tahay inaad nabi maxamed raacdo dad baa sheegtay inay ilaahay jecel yihiin laakiin nabi maxamed baa la maray arrinka noocaas waxa ka soconaya ma jiraan fii suurati aali cimraan bal u fiirso ilaahay muxuu leeyahy qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbib lakum wayakfir lakum dunuubakum wallahu ghafuuru raxiim haddaad ilaahay subxaanahu watacaala jeceshihiin anigoo nabi maxamed ee soo raaca maxaad helaysaan ilaahay baa ku jeclaanaya ilaahay baa dembigaaga dhaafaya nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa aw cafwan xadiidka qaybtiisa hore waxay ahayd kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa markaasaa rasuulku sala allahu calayh wasalam saxaabadiisii ay ku weynaatay ma cid baa diidaysa inay jannada gasho markaasaa rasuulku sala allahu calayh wasalam wixii inoo kala caddaynayay cidda janno gelaysa iyo cidda iska diidaysa inoo kala caddeeyay oo muxuu yidhi man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa qofka aniga iyo adeeca oo nabi maxamed ah jannada waa gelaya qofka anigoo nabi maxamed ah iga baydha ama iga leexdaana dee waa qof jannadii iska diiday ileen wadadii jannada lagu geliyo waa raacitaanka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa adeecitaankiisa la adeecaya ilaahay mar kale wuxuu inooga warramayaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih wattaquu allaha in allaha samiicun caliim ilaahay rasuulkiisu markay arrin la yimaadaan ama ay noo keenaan inaan shay kale laga hormarin waa raacitaankii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa la raacay mar kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahy qul atiicu allaha waalrasuul fain tawallow faina allaha laa yuxibu lkaafiriin ilaahay rasuulkiisa adeeca nebi allah waxaad ku tidhahdaa ilaahay rasuulkiisa adeeca haddii aad jeesataana ilaahay subxaanahu watacaala ma jecla dadka gaalada marka nebi maxamed haddaan dariiqiisi la raacin waxaa qofku u qaadaya dariiqii gaalada aayaadka ku soo arooray aad iyo aad bay u fara badan yihiin runtii ma soo koobi karano oo ciidday ka fara badan yihiin waxaynu ku soo gabagabeynaynaa oo aynu leenahay badbaado oo dhan waxay ku jirtaa raacitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wanaag adduun iyo mid aakhirana waxaa ku jira raacitaanka la raacayo dariiqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dariiqa rasuulkuna waa mid sida cadceedda u cad oo dee aayaadka qur-aanka iyo xadiista nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay noo tilmaamayaan mana aha wax dariiqada kale ku qaldamaya waa dariiqu rasuulku sala allahu calayh wasalam sida inoogu jeexay maalin maalmaha ka mid ah oo inoo tilmaamay inuu yahay dariiqii jannadayna geynayay laakiin duruq yaryar oo ibliis iyo acwaantiisii shayaadiintu ay joogaan hareerihiisa inay jiraan inuu qofka muslimkii kuwaas ka ilaaliyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadnaqayaa culimada iyo mashaayikha aanu barnaamijka soo wada jeedinayno xikmad same oo aan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu ku soo qaadannay mowduuca ah xuquuq lmustafa calayhi salaatu wasalaam runtii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam intan iyo in ka badan buu inaga mutaystay inaynu nafaheenna kuwa ehelkeenna walaaladeen iyo ummadda muslimiinta oo mar kasta aynu xasuusino nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jacaylka aynu jecelnahay adeecitaanka aynu adeecano raacitaanka aynu raacano kudayashada aynu ku dayanano iyo rumaynta aynu rumaynano iyo sida aynu nafaheenna iyo guryaheenna iyo goob kasta oo nolosheenna ka mid a aynu unagu qurxinano siiradiisii calayhi salaatu wasalaam daahirka ahayd nadiifta ahayd udgoonayd ee quruxda badnayd وإلهنا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبالله توفيق سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وatahay daawadayaal waxaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa kuna soo afmeeraynaa barnaamijkeena xikmad same oo aynu toddobaadkan ku falanqaynaynay xuquuqul mustafa barnaamijka waxaan u mahadnaqaynaa walaalihiin
culimadeena inoo falanqaysay sida qiimaha badan leh uga waramay noloshii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. intaan ku kulmi doono barnaamijkan xiga dhankayaga iyo dhankiinaba waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. يا من أرسيت مراسينا وبعثت بنورك ياسينا أيلوذ بغيرك عاصينا لك يا الله. قد حل وباء أرقنا ورفعنا الأمر لخالقنا فهنا وهناك يلاحقنا فدعونا الله. يتلاشى الهم وينحصر ومخالب تقوى وتنكسر والفرج سيأتي